nasteexa maxamed warsame oo loo yaqaan nasteexa indho ayaa guurstay Cumar oo ka soo jeeda beesha Isaaq kadib xiriir jecel oo dhaxmaray balse sheekooyin duugan guurkan ayaa jira oo baraha bulshada lagu hadalhayo ninka guursaday fanaanad nasteexa indho waxay ilmaadeen yihiin wariye Sagal Mustafa Xasan Nuur oo iyadana guurstay nin ka soo jeeda beesha Mareexaan reer diini Sagal Mustafa oo nasteexa indho saaxiibo yihiin ayaa ninkan bartay waxayna Sagal sheegtay inay ku faraxsan tahay guurka Cumar iyo nasteexa halka iyadana wiil beesha daarood guursatay haddaba sheekadan ayaa meesha ka saaraysa arrin cunsurimo ku jirtay oo siyaasiyiinta Soomaaliland dhowr jeer sheegteen taasoo ahayd inaysan gabadha Isaaq guursan ragga daarood ama habiye ceeb iyo fadeexa ku noqon doonto siyaasiyiinta Soomaaliland oo mar walba caadaystay inay ku dhaqmaan cunsurnimada عليال قلد ملك بيالذي وقبتان وعذر قذفه قوين هير لاغو مقارين وقنيمو قدب walaalka iyo gamoor qablan iyo gumaad bal laga dhaxlaa nacas garashliitay garabsata qof kastoo gargaarsada way gabtaa قدب walaalka iyo gamoor qablan iyo gumaad